بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي هبين وناكسن meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelkeena saaxiib subscribe noo saar waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga halyeeyga hore ee Manchester United Real Ferdinand oo magacaabay labada sababood ee Manchester United ku kala dooratay labada laacib ee Casemiro iyo Declan Rice mid ka jaran lahayd ee aan ka garab ciyaarto Messi, Neymar iyo Ronaldo iyo Kylian Mbappe Kevin De Bruyne oo xusay labada ciyaaryahan oo garab ciyaar lahaa intuu nool yahay waxaan kaloo saaxiib warbixinkan ku eegi doonaa laacibka lagu magacaabo Super Harry Kane oo gool taariikhi ka dhisay naadiga Wolves markay kulan horyaalka Premier League isku hor yimaadeen galabta warbixintaasna waxaan ku eegi doonaa saaxiib ayadoo faahfaahsan ayaan yahay ku soo dhawaada saaxiibayaal warkii oo faahfaahsan saaxiib haddii aad weli la sii joogtid aad subscribe noo saarin fadlan saaxiib subscribe noo saar waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga laacibkii hore halyeegii hore ee naadiga Manchester United Real Ferdinand ayaa sheegay waxa Manchester United ku khasbay inay ka tagto laacibka lagu magacaabo Declan Rice oo ka soo jooga dalka England iyo laacibka lagu magacaabo Casemiro ee ka soo jeeda wadanka Brazil oo wax badan u soo dheeli jiray naadiga Real Madrid halyeegan ayaa sheegay in Manchester United ay ku xulatay laacibka lagu magacaabo Casemiro inuu yahay nin experience leh nin khibrad leh nin wax badan ku soo dhex jiray qaaradda Yurub nin aad iyo aad looga yaqaano qaaradda Yurub oo dhan waxa uu sheegay halyeega hore ee Manchester United in laacibka lagu magacaabo Casemiro uu 5 jeer ku soo guuleysay Champions League asagoo jooga naadiga cadcadka ee Real Madrid waxa uu kale uu sheegay laacibkan lagu magacaabo Real Ferdinand in laacibka lagu magacaabo Casemiro iyo Declan Rice wax badan qiimihiisu aad u hooseeyay laacibka lagu magacaabo Casemiro ee khadka ka dhex ka ciyaara naadiga Real Madrid waxa uu kulano sheegay laacibka lagu magacaabo Declan Rice in naadiga West Ham ay ka dhigtay laacib lama taabtaan ah markii ay 150 milyan ku sheegtay qiimaha lagu fasaxayo laacibka khadka ka dhex ka ciyaara naadiga West Ham ee lagu magacaabo Declan Rice waxa degan naadiyaal san ognahay waxa deeya naadiyaal far badan ee ka mid tahay Chelsea naadiga Manchester City iyo naadiga Manchester United Manchester ayaana u dhaweyd inay soo qaato laacibka lagu magacaabo Declan Rice oo ah laacib firfircoon daa'ir ah laacib xirfadle ah booniga aad iyo aad macnaha u habeyn kara kuna jiray kana soo muuqday 2021ka Eurodii ka dhacay qaaradda Yurub kaasoo tabaraha England uu aad iyo aad u aaminay laacibkan ayaa wuxuu yahay laacib daa'ir ah booniga dhis yaqaan saasna ay ku doonaysan naadiga Manchester United laakiin marka ay aragtay laacibka lagu magacaabo Casemiro oo khadka dhex ka ciyaara naadiga Real Madrid ay ku soo qaadatay experience iyo khibrad iyo inuu ka lacag yahay laacibka lagu magacaabo Declan Rice ay ku soo qaadatay laacibka lagu magacaabo Ferdinand waxaan kaloo saaxiib ku eegi doonaa laacibka khadka dhex ka ciyaara naadiga Manchester City oo lagu magacaabo Kevin De Bruyne oo sheegay in afartan ciyaaryahan ee Neymar, Mbappe iyo Messi iyo Ronaldo labada uu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro inta uu ku jiray xirfadda kubadda cagta waxa uu sheegay laacibkan in uu waqti dheer u soo ahaa taageero laacibka lagu magacaabo Lionel Messi oo daawado mar walba uu joogo guriga laacibka lagu magacaabo Lionel Messi laakiin tan ayuu ka bedelay inuu jecel yahay inuu ka soo garab ciyaaro laacibka Messi maadaama uu doortay inuu ka garab ciyaari lahaa haddii loo soo bandhigi lahaa afartan ciyaaryahan laacibka reer Brazil ee lagu magacaabo Neymar Jr laacibka lagu magacaabo Neymar Jr ayaa waxa ay hadda ku saacadaysaa wararkana oo soo leeyahay in laacibka da'da yar ee Kylian Mbappe ay isku qabsadeen rogortuurashada naadiga Paris Saint-Germain markii laacibka lagu magacaabo Neymar Jr uu soo qaatay Burnley halka laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe uu ku qabsaday laacibka lagu magacaabo Neymar halkaasna xunguruf ay ka timid maadaama labadan laacib ay labaduba yihiin laba laacib oo aad iyo aad u kibir badan laacibka lagu magacaabo Neymar iyo Mbappe ayaa waayahan qabsaday saxaafadda Yurub qaaradda Yurub oo dhan maadaama labadan laacib ay laba laacib waaweyn waxaan la ogyahay in laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe uu dhawaan u saxiixay 5 sano oo saxiixa waxaana uu markaas ka badbaaday inuu ku biiro naadiga Real Madrid ee cadcadka kuwaas oo go'aan haatanayay laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe doona laacibka lagu magacaabo Harry Kane inuu gool madaxa ugu shubay naadiga Wolves
kadib markii ay isku hor yimaadeen Wolves iyo Tottenham kulan ka tirsan horyaalka Premier League taas oo sababtay in laacibka lagu magacaabo Super Harry Kane taariikhda loo gasho inuu yahay halyey ka soo jeeda dalka England ayaa qaranka England waxaanu Tottenham ka yahay halii laba taabtaan ah maadaama wax walba u soo horay nadiga lagu magacaabo Tottenham ee ka dhisan magaalada London Tottenham ayaa waxa ay sanadkan sameynaysaa wax mucjiso ah markii ay 3 daqiiqo ka dhiman tahay kulanka hore ee Chelsea iyo Tottenham uu madax ugu shubay laacibka lagu magacaabo Super Harry Kane ayaa waxa uu yahay laacib haysta 350 gool koob la'aan maadaama nadiga lagu magacaabo Tottenham intuu sano u joogay uu wax koob la qaadin goolal intaas ka badan uu soo dhashay laacibkan Super Harry Kane lagu magacaabo ayaa waxa uu wax badan ka soo sameeyay horyaalka Premier League maadaama uu yahay laacib firfircoon laacib daayir ah laacib chance ku hela nadiga kale aan caafin maadaama laacibkan uu hayso laacib xirfadlayaal oo ka caawiya inuu goosha sifad ku gaaro intaas ayaan saaxiib ku soo gabagabeynaa waana ku mahadsantahay saaxiib la jaanqaadkiina